anigii taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland oo runtii aad iskaga xil saaray in difcadan saddexaad ay noqoto difcad dalka iyo dadkaba wax tarto mar dhowna tababarka ayaan u xiri doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dalka u dhalatay waxa looga baahan yahay inay ka qayb galaan difaaca dalka xoreynta dalka dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadana inay la yimaadaan barnaamij oo waxtar ah oo looga sifaynayo argagixisada dalkeena si ay iskugu furmaan degmooyinka gobolada iyo deegaanada ay kala xirxireen iyo dadka Soomaaliyeed oo ay ku haystaan madax furashada u haystaan marka inahaasna insha Allah waan ka dhameyn doonaa annagoo la kaashanayno dowladeena markii ay si fiican u luga dhigato marka waxaan rajaynayaa dowlad goboleedyadana inay la yimaadaan barnaamij oo waxtar u ah waxaan isleeyahay marka 3 bilood gudahooda barnaamijkaas waa lagu afjari karaa waana maxaan ku raad lagu sifayn karaa marka khayr baa idin rajaynayaa qada wanaagsan iyo tababar wanaagsan iyo shaqo wanaagsan